siirada suubanaha sallallahu alayhi wa sallam. qaybta labaad. nebigu wuxuu dhashay sanad loo bixiyey caamul fiil. sababta loogu bixiyey waxay ahayd duulaankii uu abraha ku soo qaaday kacbada. abraha oo ahaa nin xabashi ah oo yaman wakiil uga ahaa boqorkii xabashida ayaa markuu arkay sida carabta kacbada ugu xajinayso wuxuu galay maseer. markaasuu magaalada Sanca ka dhisay kaniisad aad u weyn isagoo raba inuu carabta ka jeediyo xajka ay kacbada u xajin jireen. arrintii ayaa waxaa maqlay nin reer Bani Kinaana ah. markaasuu kaniisadii tagay oo qibladii wasaqeeyay. abraha markaasuu arrintii ogaaday wuxuu ka xanaaqay wuxuuna go'aansaday inuu kacbada dumiyo. wuxuu soo kaxaysay ciidan gaaraya 60,000 oo askari iyo dhowr maroodi. maroodigii ugu weynaa isaga ayaa saarnaa. abraha iyo ciidankiisa waxay soo socdaanba markii ay Maka u soo dhawaadeen ayay geel Cabdimuttalib ilaha qabsadeen. markaasuu Cabdimuttalib ergo ugu tagay isagoo doonaya in geeliisii loo soo daayo. abraha wuxuu yiri kacbadiina ayaa duminaya adna geel baa doonaysaa. Cabdimuttalib wuxuu ugu jawaabay geelka aniga leh kacbadana Rabbi ayaa leh isaga ayaa ka difaacanaya. wuxuuna abraha yiri haddii aadan ila dagaalamaynin Maka iskaga baxa. Quraysh sidii ay yeeshay geeliina waa loo sii daayay. markuu abraha soo gaaray toga xasaar ee Musdalifa iyo Mina u dhaxaysa ayaa maroodigii istaagay oo diiday inuu dhaqaaqo dhinaca kacbada. marka dhinaca kalena loo jeediyo wuu ordaa. xaaladda markay muddo sidaa ahayd ayaa Ilaahay markii dambe u soo diray shimbiro mid walba wadato 3 dhagax oo ay ku kala wado afka iyo labada lugood. ninkuu dhagaxaasi ku dhacna way gogo'aysay jirkiisa oo dhammaan. dhagaxaantii dadkii dhammaantood kuma wada dhicin ee waxay ku dhacday intuu Rabbi u qadaray. intii kalena way carareen iyagoo isjiiraya. ninkii abraha ahaa isagoo naf xumi ku jirto ayuu tagay Sanca oo uu ku dhintay. Quraysh oo markii ciidanku uu yimid buuraha ku kala cararayna dib ayay u soo laabteen. qisada waxaa ka warantay suuratul fiil waxayna dhacday sanadkii uu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhashay. waxaana loo bixiyey sanadkaas sanadkii maroodiga caamul fiil. siirada suubanaha waa barnaamij maalinle ah oo aan aalaaba ku soo bandhigi doono siirada nebiga sallallahu alayhi wa sallam. kala sooc maalmaha Ramadaanka 4 galabnimo Rashka Production YouTube iyo anigoo ah Ahmed Jubba.